arinta dagaalka ama arintii weerarka korqaad ka hadashay waxa halkan kugu yimi ninka u qaabilsan xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya oo labaduba la sheegay inay wadeen dadaalo ama dhexdhexaadin arrimahan dagaalka lagu dejinayo warar ila diblomaasi soo dusiyeen waxay sheegayaan inaad tibaaxday ama aad u sheegtay inaad la hadlayn Cabdiwali Cali Gaas oo aad kala hadleen arrimahan colaadda taagan oo aad farmaajo kala hadlayso maxaa diiday in maadaama arrimahan taagan inta badan Puntland lagu xiriiriyo markaadna saadhoojid Soomaaliya ku xiriirinaysid inaad kala hadashid Cabdiwali Cali Gaas oo ilaa 98 markii Puntland la sameeyay deegaanadan Sool iyo Sanaag bariba Duulaan ku soo qaadiyo sheeganayay oo marna laga saaray horta marka hore mabdi'iyan waxaanu nahay Soomaaliya Somaliland Puntland waa gobol ka mid ah Soomaaliya ama state bane markaa horta qadiyada inaynu iska hor nimaadno Puntland oo ka mid ah qayb Soomaaliya oo ka mid ah isma haysanee qadiyadu waxay ka dhaxaysaa Somaliland iyo Soomaaliya oo ah labadii dawladood ee ka midoobay 27 sano u dambeeyana kala maqnaa taas waa mabda'a guud iyo taas jirto haddana waxaan ka raacay waxa la yiraahdaa dantaada maqaal ay baa lagu fariistaa marka dawladda doonaysan halkii ay kala gashaba waa la yeelaa nimankaasi waxay yimaadeen January markii hadalku bilaabmay waxaana yiraahdaa waxa wanaagsan inaad hadashaan Soomaaliya waan waa hadalay ninka la farmaajo ciidanka ka bax Soomaaliland waa inta si qabow ila hadlay waxaan la tashanayaa Cabdiwali waa soo galay hadalkii la hadal baa leeyay isagana u khusayay waan waa hadal tiraba 3 jeer oo ay waliba conference-ka lagu jireen ka Mareykanka iyo kala waa yaalada hadal saddexdii goor baa Cabdiwali wuxuu yiri saddexdii ka bax isla markiiba kii u dambeeyay sheegay Afritonkii wuxuu soo qaaday warkan u dambeeyay 4 bish 23 habeenimo waxa la soo haday safiirka Mareykanka inuu joogo wuxuu yiri waxaan doonayaa inaad saddexdii qodob kiita oo idin keenay in la firiyo aroorta Brito oo meesha aanu darka dhacay warnabada waa ana ka jecel saddexdaana waan raacsan saddexdu maxay yihiin xabada hal la joojiyo humanitarianka hal la ogolaado hal la sameeyo qaab ay labada koondar ciidamada ku hadli karaan oo si aan isku dhicin si kadib ciidamada oo naxbado dhicin saddexdu ogol haddana ogol hore ogol waxa la soo safarka markii wuxuu saddexaas san doonaya inaan goobjoog ka ahaado Cabdiwali baa ku jira dhig kala telefoonka ogol saddexda qodob ka hor saddexda horaan ogol laakiin waxaan ku sheegay safiirow Cabdiwali oo maqlayaa ciidankiisa imika wuxuu ii jiraa 500 mitir 7 kilomitir galabtii ku soo guuray weerar waa u dhay ilaa hadduu soo socdaa inuu 700 soo dhawaado doonaya aroorta marka ceed soo baxaan weerar bay ku soo qaadaya habruufka aroorta hadii weerarka la waayna nabad wada hadduu dhacana waa wixiisi maxaan ka dhageystaa shantii markuu igu soo biraado kii kale ka horreeyay saas ahayd lamid buu ma farmaajo ku jiray teleconference leeyahay nabad halkayga soo dhaaf maayo xabada soo rimayno laakiin shalay berito waxay noo tahay 15 shalayna laba goob bay soo weeraray waxaan mu soo weeraray wuxuu dagayay baruhu aroorta ka soo weerar qaadanay madaxweyne iska soo reysay yaa garantii siree berito baad ayaan ku jiraan weerar gal ma galaya leeyahay waa godan wixii ka dhacay marka binaad qowl bisla qowl ka ekaada nin meel u jeeda hadal ma xiraayo waxaan arkayaa in aan dadka Puntland dagaalka daruugu jiray dagaalku mid siyaasad ah Soomaaliland waa gobol kamid ah caasi garoobada xoog baan ku muquurinaya xamar ka soo baxado la soo maray Cabdiwali baan warka marka ninka wada hawsha yan ka hadlay dhaawacii miyaanu diyaar soo dirno xamar loo geyn miyaanu turkiga u qaadayna ciidankiisi dhaawac aha miyaanu isagu ku saar xamar ku tagay boqoshooyinka ahayn maxaa miskiin Cabdiwali la isticmaalay aan ka hadlay haddii nabad la doonayo nabad nin baa dabada ka wada halkaas ka socota nimanka waan ka xumaa aan dhalinyarada Puntland reebel baa la yaal iska aabulaya oo la soo dhaxmaro aad baan uga xumaa dambina ma laha waxa loo soo dhaxmaray madaxweynahooda oo malaha isaguna siyaasiyan uga jeeda inuu kursiga dheertay waqti ajo marka waan la hadlay adeer haddii wax ka go'an baan la hadlay cid qowlo Ilaahay ka yaab soo ergay ku dhahday hirgaliya wala la qaata laakiin qof aan wacdahay maxaa kala galay ilaa maalintii jeeno eerkeedii
qof walba waxaan ballan qaaday inaan ciidanka halka dhaafay xabada ridin xataa mararka qaarkood waxaan u diyaar sahanka inay hore xagga hore iska eegaan taliyash maalin walba waxay gaaraan 50 kilomitir hore maalintii hore waxay dhaafeen qaboobe oo xarintooda ahay waxaan go'aan ku adin la soo celiyay ciidamada bal ciidan guul gaaray oo cadawgu si jabiyay oo jiiri karaayo oo karaayo oo leeyahay ka soo noqon ka war nabad baan ku doonaynaa dadka deegaanka nabad galaan baan doonaynaa inaan deegaankayga la soo jeedin oo dadka dhulka degan aan ciidamada habeen baan doonaynaa ku socona laakiin hal cidii qowlkaas ka go'ay madaxweyne saddex su'aalood oo kooban ayaan jeclaan ku weydiiyo su'aasha koowaad waxay tahay xukuumaddaadu markii ay bil jirtay waxa soo saartay go'aamo ku saabsan sidii saxir baraka waxa looga qaban lahaa weli ma hirgelin oo dadkii danyarta rabadaan oo soo gashay saxir barakina weli waa taagay maxaa ka qorshaysan dadka ku dhaliila Muuse Biix Cabdi oo madaxweynaha Soomaaliland dhaliila waxay yiraahdaan madaxweynuhu markii ololaha lagu jiray wax la lahaa oo go'aan adag markii tala timaadana ama arrin soo kordhana isu kaalay ay yiraahdaan maxaa bedelay go'aankaagii aadka ee ay dadku ku doorteen su'aasheeda saddexaad ayaan jeclaynaa ku weydiiyo waxay tahay waxaad sheegtay in ciidamada Soomaaliland marka xilliyada ay timaado abaarta iyo gugu ay dib uga soo baxayaan halkii marka hore ay taagnaayeen ee xadkooda wahaa yaa ilaalinaya haddii imaka halkaa taagantiin dib uga soo baxdaan haddana ma waxaad doonaysaa inaad dib u noqotaan haddana dagaalkaas uu saa ku sii socdo mise qorshe kale aad haysaan saddex su'aalood bas kuma oran halku joogu dib uga soo noqonaya waxaan ku oray marka abaaraha meel biyo dega marka guyaashana wax laga baxaa meesha daadka iyo biyo jiifaan isagoo eri daafacayo kolba ilaaliya ciidan dib soo noqonaya ka hor soconaya ma jiro horta hadda baan ku sheegay ciidanka Soomaaliland intuu xadkiisa gaarayo sida ugu dhib iyo khasaare inuu gaaro oo kolba de nabad lagu dado oo wada hadal lagu dado haday socon weydo de oo lagu soo doonto wax la iska celiyo mooyaane waxaan ku sheegayaa ciidan soo noqonaya haltaa ka jiro ciidanka halkaas dhaxa weerar lagu reeyay ee waxa soo dhimashay dhaawac ka soo gaarayna hawa soo qaaday talabaad horta doorashadii idinku baa lagu go'aan adag marka hore hore aqoon miskiinka waxba ya marka ya waladina jiraayska ay baasha tuurayo anu da miskiinka saara number 1 marka wax dhacaan sida xigmad waliba farayso cid kasta oo bini'aadmi mara daayarkaas oo saddex dadka u shiraaray marka wax dhacaan oo quuq isu yimaado oo shirxida bini'aadmi oo uu shiraa marka wax waayo taladu waa baadi waa la ururiyaa inay ku jirto Ilaahay baa marka xidhan waqti oo la tala badsaa sababtu ku tabaraya hadii ay siyaasad tahay haday maamul shirkad tahay haday ciidan tahay shir baa la qabtaa tala la ururiyaa go'aankii dhowr laga eego baa lagu dhaqaaqa Ilaahayna quraankiisa ku sheegay shira oo tashada oo hadaa goosataan ku adkaysta marka waxay wadaan anu waan shiriya oo talada waan daydaya anu dadka waxa ma dheeridii qof caadi baa taladana ay wada muuqan karto waan ururiyaa laakiin go'aanka wada qaadano ku xajinaya go'aanka wada qaadano halkiisa uu taagnaanaya ilaa shirka la bedelo waa lagu soconaya Soomaaliland hal mar bay goostay go'aan wada jira aan qarnimadeenna soo noqono burco boormara waxa ku sooysay xad qarameedki hargeysa tooysaashkana waxa ku sooysay dastuurki 200 dina waxaynu ansixinay dastuurki qodobka koobaad xadka dalku sheegay anaga gacanta taabay saartay dalka midnimada ilaali cadawna ka ilaali dalka xadkiisa waajib saaro kitaaban gacanta ku bixiyay waana go'aankeeni wadaneed xisbi kastoo tartamay kaas ku socday marka dalkeena marka la sharay imika waa waajib saaran xukuumadda iyo dadka kiibar ku socona oo waliba aynu bohradeenno iska ilaalina inta ka baxsan karo cunf hadii aqal la helo laga soo jeeda kaasina waa kalabaad sicir bararki hawshiisi waana socotaa malaha wali halkan doonimo gaarin dhaqan waa jira intii talaabooyin la qaadi karayna ninka wuxuu raasho maan kayga dama saar bay laqaday shakada soo taqaan odayga la dhigeeyo aad u yaqaan ya tarana baad cawdayna inay fashiliyaan ya tara gudin yar quraan la yiraahdo maan saarto tay u yar ee lagu qoran karo ay hashi dabadka geli odayga baa wixii hashi dhowr ka eegay oo kadeed teelo buu gurtay maama ilaa ma hayn barigi baalkan la iskaan kan wax lagu eegay warash maasa
يا ما كده بصار بلغة تبارك وين كوضنا هذا واحد راح عشان كصوبيري حال كذا ضيسه أنا مد ما روي أنا كقيب قاطعين سعر بركة بدل كين هبلوك بجري أنا رجع بقول كيف شان إياس عشر إنه قيب كنا من بنوه بارك على سعر بركة صارني ولا متشقادو أنا لو $1 هبين كيلو شن بقول إنه قلت هاي من شن بقول كنا $1 بحنا واحد من هيدتك أنت يسون إبسدان لعقت هذا الوارد على يقولون عليه هذا لك قيلنا إياه حنس عبارة برهذا مكو إجنا إنه تاك هاير نفسه إنه حكاية رأيه مكو إجنا وحصل صار بارنا سوينه هذه دليل معمول شرتنا أنه سوته منو من خبره أنا قال لك براو إذا كنت أعطي له هالكلام فينه مشتركة دولة ده أنا سوته لكن ولو دواء وديدينه هذا عيدا فرصك في غير عيدا ساكرة أنا قرر معي لكن ده بيروتنا وحنا واحد من هو صورة غاغي لكن أنا كنا دورنا مقارن تانا وحياة بدن بصانية إنك كحيل مدن مدح المقعي هو عبد الرشيد عبد الوهاب عن كسر تي في يونيفرسال waxaan ku weydiinayaa su'aal la xiriidha mudane madaxweyne dhawaan waxa jirtay magaalada Laascaanood rabshada ka jira oo dadweynaha ay ka soo horjeedaan go'aano ay soo saareen gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo xubno kamid ah xukuumadda horena waxaynu ogeyn in xukuumadda Soomaaliland ay taladeedii maamulkeedu magaalada Laascaanood ka tirnay hadda dadweynahaasi cabanaya oo waliba dawladda Puntland ay leedahay waxa lagu hayaa caburin waxay la dul saaray awood military maxaa keenay awoodda military imika hadda la dul saaray magaalada Laascaanood iyo go'aanada hadda cusub ee Soomaaliland marka hore leeyahay ka tirin jirtay maxaa keenay go'aanadan hadda la soo saaray xukuumadda ay soo saartay horta mid kuba raacsanaya waan kaaga firduwanahay oo ku saxaya go'aanada ay soo saareen waftiga uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka baashe iyo wasiirada joogay ee nabadgelyada magaalada ahayd dadku way bogano way soo dhaweeyeen waxa diiday oo ka hadlay dawladda Puntland afhayeenka madaxtooyadooda ayaa si bareera u diiday ereyga awal caburaya cid baa loo diiday go'aanada soo saaray anigu ninkaas ma ka maqan midiya waxaan ka arkay ilaa 20 qof oo baamitr iyo da walba leh oo reer soora oo soo dhaweynay marka ra'yiga way diiday waxaan u maleynayaa inaan jiro haddii aanad ka madaxtooyada Puntland soo qaaday go'aamada wala soo dhaweeyay qaana magaalada nabadgelyada baa laga hadlayay in wala nabadgelyo jecel qaarna lagu canantay dawladda baan ku sheegaya mara was dhagan baad ka dhamaraysa ana ku sheegay dhaliishada koor lagu dhaleelay dad badan baa lagu diray soo maalmaha dambe 3-4 dilo iskaga dambeeyay jiray waana midmooy kuwa kala aanan ku guulaysan soo qabashadoodii kuwa lagu dhaleelay waxna lagu dhaleelay reer soo lagu dhaleelay oo waftigaana weydiiyay anagana weydiiyay dadka wax dilay xiran maxaa loo dili waayay هذا خبر قنصان أنا قفلنا كان مركان ليش ما قرينا وحيت هو رزق شجرة لكن ترى شيء مرة أحسن وهذا هو قامت وركا يا عوشة بطلان راعي منه وحنا وفتي ماشي تشوجا باش هو جامنا يلا عد الصور وقال حكي على بدن تعد لما إذا مو ما فرعي عد ولا حكي عليه تشرت واحدة تسوى صاريه مركان قانا ذا نبت قرية قرية كسابسون كسلوا سيدنا كتروي البارك سابسون وحنو كعلى رينا in dilalkii hore dhacay oo hawshoodii raacada lagu jira oo wari dadku naga suwayo in qaar kana amarka hortageen ciidan military imtixaan police baa tagay military wuxuu ku jira raaca hore reer soo la shalay waa kuwa ciidanka u gurmanayay ee dhaawaciista kuleynayay ee arkaysay sidii u taageersanaa marka dhaliilo waa leenahay laga doonay laakiin taa shalay ku waraacsan afooyin qaran baa sheegtay oo maxay masiibooyinka galbeed ka dhacay hore inaga roob iyo daadad baa jira dooxyo dad badan bay qaadeen maxay tahay qorshaha xukuumaddu ma leedahay qorshe ay ka hortaga masiibooyinka ama afooyinka soo socda haddii wacyigelin noqonayso haddii ciidan gurmad noqonayso taas waa mid su'aasha labaad waxaad sheegtay inaad cabdiweli gaas la hadlayn farmaajood kala hadlayso farmaajo waxa muuqata inaanu diyaar u ahayn inuu arrimaha Puntland kaaga hadlo maxay talaabada kuugu xigtaa hadduu diido ta saddexaad arrinta calafoyn wali way taagantay waana soo noqotay miyaa la oran karin arrinta dawladdu iyo dawladii hore way tahli kari waday wax qabashada arrinta deegaankaas ta koobaad ee adooxyadan iyo dadku waxay qaadan qorshe ma kale qorshan ka wala kaad kale u man kale ka qof raba kale baan kale waxay ahayd inaan helo awood aan barijo ka soo saarno wadooyinka ku hagaajino wana qorsheena koobaad waayo
laakiin danteena iyo hamigeenu isma gaara inta badan tawaacigelinta ha imika alxamdulilah hay-adan saadaasha hawadu sanadkan aad bay u shaqaysay wayna wargeliyaan rikoor wanaagsan sameeyaan dignina wayna siiyaan wacyigelin badan oo dadkeena markay roobka soo da'ayaan baynu baahannahay sidaynu berisha iyo u dhisan lahayn wadooyin wanaagsan oo dadka nabadgeliyana waa hawl loo taala wax soo saar baa laynaga rabaa tacab baa laynaga rabaa tuugma bini aadamku dhaqmin waxa aynu gaari weynay waa wixii danteenu gaari weynay laakiin hamigaa waa wada qabna cabdiwali gaas la hadli maayo waayo dagaalka isagu ma wado waxa wada taliska muqdisho gabagaan raaiso aad u xusamaysid hadduu awr dhufaane isku sayna dhibidii anna maan isdhega tiro hadduu farmaajo isdhega tiro anna waan dhagalahay kuma duulayo halkiisa tegi maayo laakiin su-aalaha waa daafacayna ragga daafacayna kuwaad ka noqonaysaa intiina aba batalayna waddanka daafacaha waynu waa daafacayna dalka haddii la maqli waayo oo isdhegeysan waayo gardarro ma wadno dulmina ma wadno xabadna ma wadno laakiin nin kule ma jirtid xoog baan kuu muquulinaya dee qaranka su-aal aqbali maayo diintaa banaysay inaad daafacdo dalkaaga markay halkaas kala gaadho ceelaf dee dhammaanta waa ku ceebaysana dawladdu talabaankay qaadtay waa qaad way ku celcelisay ninka wax dilaha la soo xidho marka dambe ha la qabto nabadda dadka ha la isugu yeedho ha la wada hadlo mar walba intaasoo hawlood bin 2 sano wadni waa la soo qabtaa dambiilayaashii waa la soo xidhaa ku qoraysatay waxa la galaa sidii caadayna oo had wada hadallo wada hadallada waxa gala dee sidaynu isla wada ogsoonahay madax dhaqameedka iyo culimada iyo dadka dee warweynta dadka gasha way galaan way jabtaa haddana halkii ka gurmana haddana inta leeg baan qabana haddana waa la isu keenaa haddana sidoo kitaab la mariya habla la isu guuriyaa waa laga heshiis baa la yiraahdaa markaanu xidhno dee sida caalam jirteen wuxuu xalino aanu ka tagnaa dadka bacdina waa dhacda haddana waa lagu noqdo imika qorshe ka weyn waa la galaa imika waxaan ku tala jiraa nin kasta oo la tuhmaayo inuu dambiilay ama uu abaabulay ama qorisita inaan soo xidhno Afrika tan baa xidhan aanu qorin soo qabanay wixii nin oday ama biisi ama baacmisra ee sharwada ana waa qabanayna la isla garto waxa ku jira guddi culmiyo odayaala guddiyo ku jira kala jaada oo doonaya horta inay wadan la xidhaan oo col qorista la waado number 2 waxa lagu leeyahay war intii hore dhaar ahayd iyo intii odayaal deegaanku heshiiyeen socon waaye Soomaaliland oo isu dhamaxay isku wada arinta waa xalis taana markaan nabadda xaslaabano keenina dee waxa jira haabab wax lagu xaliyo fara badan inagu dhaqameed raay diinta islaamka aan raacna qofku markay laba qolo kitaabka marto wixii magaca kala qaataan waxba daba waa run waan u soo noqotay maxay u soo noqotay waa xal u baahan xitaa jaamacadeenu inay raadiyaan mala qoladina jaraadka ciidanka faal badan inuu helo halka buu Soomaaliland dhul isku tagto xukuumaddu hogaaminteeda inay markay nabad la doonayo in wixii fidmaana qabato dadka nabadda abuurayana keento dibetana go'aanada dadka nabadda keenay la fuliyo waajibaadkan waa qabanaan mar walba waanu qabanaa marka la jabiyo waa soo qabanaa wala gurmada runtii waa hawl inagu raagtay qaranka oo dhamina u baahan in la isugu tago anaguna aan hogaamin qaranka oo dhan arrinta waa laga sugaya koo waliba culayska u badan waxa qaadaya qoladiina media way warkiin meel wanaagsan gaara qof walba gurigiisa u sugtaan haddaa war nabadeed iyo soo dhawaana dirtaan waxba ka taray laakiin ninka wariyaha ee war sharada ee fidmadira aakhirana cadaab loo kulmaya adduunyada fidmo kan waana dambiil ki qoriga ka weyn marka maxay noo diiday meediyaheena caalimkeena dawladeena inuu dhamaanteen arrinta ka wada gungaadno oo nin walba shaqeeya xagga nabadda yaanu xagga sharka waqan meediya waa aragtay waxa ka socda xaaji wada aragtay waxa ka socda هذا ميدا قد أوينه كوفين الوادي قست ملا بدارته وقرنه صاي يعني هرت بالحق ميدا باشا كسو قرادونا أنا حق دولة كجريه واي madaxweyne magacaygu waa Luqmaan Maxamed oo ka socda telefishinka bulsho boqor Cismaan oo Maxamed Buurmado waxa lagu xiray inuu ka qayb galay caleemasaarka beeldaajo Puntland waxa jiray xildhibaan golaha guurtida iyo garaado kale oo reer Soomaaliland ka qayb galay
lama xidhin boqorku wuxuu markii ugu horeysay anoo muxaafida oo xisbiga iyo madaxweynaha taageersan la xidho sidoo kale madaxweyne waxa jirta in Dr. Salmaan Xagla Toosiye saaxiibada dhawaa uu ku tilmaamay wasiirada hadda jooga rag aan awood ku haysan deegaanadii ka soo jeedeen taasina ay sababayso dagaalada soo noqnoqda ee ka dhaca jiida bari balabada solood maxad kaga jawaab boqor buur madow oo saaxiibka ah ninkii orahaygina qaybta ugu weyn qaatay ah su'aal baa la isweydiiyaa halkan bayn badan ay codaysay waa jirta oo qoladii faafin jirtay oo go'aan adag buu leeyahay ha lagu doorto baala soridan horta markii codka lagu ridaayay ma waxa lagu ridayay cadaaladda qaab mise anigu waxaan sameeyaa igu qaban waa su'aal boqor buur madow waxa soo eedeeyay xeeraalinteen waxaana lagu soo eedeeyay hadal uu yiri oo cidda ka qareen oo ka hor imanaya sharciga noolsan ragga kale maxay u soo oodeen waayeen markii aan weydiinay waxay leeyihiin facts aan ku keenno hadal ah marka hore ma hayo tagitaankuna dambe mu ahayn waxay wada ahaayeen suldaano iyo boqor mar walba tagaan hablay soo guuriyaan mag bay soo kala qaadaan xoolo dhacay soo celiyaan marka ereyga boqor iyo suldaan tagay mu ahayn dambe laakiin waxa dambe qofkii maxaa keenay boqor buu doon ka taqaaneen karaga dadka badan hogaamiya anagana taageerada badan iyo saxtooda naga dhaxaysay laakiin hadduu qaldamo dawristoosinina ila waxaan noo niri oo isku raacsanahay sharciga ka u sareeyo ka u hooseeya oo qabto haddii sharcigeena qabtay wali sharcigu galay cidna laga dhaaf karay maayo anaga waa lagu canaanta waliba qoladii mucaaradka aan waxay inagu socdo waxa tirada waa ka hadda abaalkiisa burmado kaga bilaabay laakiin burmado waa xiraale waa sharci soo gudbay ma oran karaan intan hay'adaha farageliyo iyaan hebel sharciga lagu qaaday hebel laga daayo marka xeerkaas ku xarigiisu xeerkaas aanu ku jira kuwa kale xeeraalinta markii anigu eegan weydiiyay su'aashan hore la weydiiyay waayo waxa la yiri hal eray oo ka hayno maxkamadu keeno maahan oo tageen mooyaane tagidina waxa isku taagayaan saadid maalinba oo talaaba waay ها تي حق لتوسيه يا تاسو waxay la tahay waa mucaarad markuu ninku calaysay heeday waxa iska magaalin kara ragaanina ma anigu waxa uu qaban ku jooga iyo isagoo inay rag muddo kala oo xilqaadi kara oo deegaanadooda sharaf ku leeyihiin ma oran kara kana sharaf ku leeyahay kana kuma labada qadarin xishada inaga buday bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweyne Cabdirashiid Sheekh Cabdi Wahaab oo wargeyska foore ka socda su'aal baan ka weydiin lahaa kulli ka duwan su'aalaha warbaahinta ku weydiisay muddo 6 bilood ayaa imika xilka haysay 6 bilood iyo dheeraad golaha gid xukuumaddu waa dhameystirtay kulli caqabado badan baa kugu xeeran talaabooyin badan xukuumadda isku dadeen wax ka qabato wax ka qiimo kar weeday sicir bararkii baa kamid hore loo sheegay caafimaadkii baa liitay dalka waxbarashadii baa qaybtii barfadkayd ay ka awood badan tahay tii public ahayd waxyaalihii badnaayay laga sugay inaad xagga hore ka qabato caqabado waxa ka hor yimid natural mid ilaahiyana iyo mid man made oo bini'aadam sameeyay tan dagaalka oo kala kamida masiibadan oo kala kamida madaxweyne hadii xaaladdu ay si haato kulliiba awal waxa lagu yaqaano ay dadku wax ma jireen inaad dagaalka cawaanta ku tahay waxaana la hayaa oo kaliya markii 6 bilood inaad Cabdiweligaas wada ku riday marka maxaa ku meeliyay madaxweyne go'aanka ku yaala muxuu yahay hadii xaaladdu ay san ku sii jirto oo san dalku si kagnaado ma waxa aad kursiga ugu dhigsanaan doontaa sidii Robert Mugabe si lagaga tuqaantiyo mise sidii Haylamir Dizail ayaad kursiga u banayn doontaa su'aashida labaad Soomaaliya dhowr jeer baynu ku eedeynay in dagaalka qayb ka tahay maxaa dokumentiga aynu haynaa in caalamka tusana kaliya Soomaaliya qayb ka ah wax ka duwan aynu haynaa ma jirta laba jeer baynu ciidankeenu dagaal galeen wax dokumentiyo ciidanku ay ku qabteen dagaalka gaadiid baa la sheegayaa la leeyahay calaamadii federaalka ku taala kaadhar kala la sheegaya maxaad bulshada tusaysaa oo cadeynaysaa oo ku cadeynaysaa in dagaalkan Soomaaliya qayb ka tahay Soomaaliya waa Soomaaliya laakiin maamulay kala leedahay iyaga bay sayya maxaa cadeyna ee dokumentiga caalamka tusaysaa in Soomaaliya ma farmaajo qayb ka yahay dagaalka Puntland ma dawlad gaar u taagan baa soo dawlad kamid ah Soomaaliya soo gobol kamid ah Soomaaliya adan ku diiday Soomaaliya markaa yar dagaalamay taasaan ku dhaafay ta kale
ورني سيدي روبر مقابل رجعت خمس قناة نقول ونكسب بات لا واحد دول سنين بدل مش كثير هاجو إلا أودي كان قاعد صومه كل قرية تاجر سنبات توم قلتها شبيدو كان كام مصيب مجلسه تا تسأل مقابل أنا وفلان كرسي كل حاجة هذا لا شيء عشان أنا كهدي طلبات dalkii waa sii liitay dalkii horta xilka waxa ilaahay noo saaray adiga iyo qof walba bini aadmiga ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri waa khaliifatu fil ard inaga bini aadmiga loo soo diray inuu dalka maamulo arrin marka hadday dhibaato jirto waxa loo abuuray dhibaatooyinka xalino qofka bini aadmiga siisaba dad doonaya rag iyo dumar waa dhibaatooyinka xalisha ilaahay ku abuuray aqliga waxa lagu soo xayo kaga duwana ee ilaahay quraankiisa inoogu sheegay marka dhibaato iyo bini'aad waa wada jooga marka ummadu qoyskaaga imka adoo qoys baad leedahay aroor bugriga dhibaato qeylad ka soo kala inaan kala iskuulkiisa noqday habriyada iskuulkiisa xalay waayay hooyo halkan xanuunsanaysay kaas waa xalisha qarankuna waa qoys weynaaday oo dhibaataysa mar walba waa joogto madaxda waxa loo bedelaya ee leesh 10 sano ku dhaafay waxa loo ogaaday in qofka bini'aadmiga hawsha qoyska inta wax ka badan haduu wado aanu noqonin positive aanu xusoo saaray way hawsha baxadaan marka iyada dhibaato way jiraysa halkana waxaan u joogaan oo im waxaan u mid inaan dhibaatooyinka isku dayo intii aan kar kale xalino waxaan kula hay doorta oo foodsiya waan sirtu ma inaan dhibaatooyinka wax ka tarayo marka tijaabadii waan wada inaan dhibaatooyinka intaan xalin karo ka xalin marka aniga dadaal baa ilaa haboon guushuna alla la jirta number 2 waxaad ka dayrsay xaaladda dalka كانوا حماضي كانوا لحظة بلود هل كان كسو قاعد أنا كقاعدني انتهى هو صغر عادي انتهى كانوا قاعدين أيام قياسين وارنتها إذا تويك عفاض واقعنا تعليمتين وحي وبانتي لقارب بدن إلى الإسكولية إنه هجاتشنو لكن برايفتكم حيوحوا ويننا إياه بابليك سؤال شوايا إلى حلسة إسكولو بيقولوا ليه wuxuu weeyaan qaran ku leeyahay waxaan u baahanahay in abuuro dhaqaalaha qaranku lagu wadi lahaa tacliinta hore lagu qaaday cashuurteenu qaadano iyo cashuurta ku ajfidadkeena 20% boqolkiiba 20 ma helo cashuurta ma qaado way dadku way baran ma diidan dadku hore maro laakiin waxa la bartay waxaan ka soo baxnay fawda dagaalo ka soo baxay dadka maskaxdooda waxa ku jirta xitaa kuwii yaryar soo gaareen dictator waxa dadka cuna haday wuxuu gacanta galaan aan waxba soo celin marka asaas baa la qaba dawladda absi laga qabo attitude hore bedela inta badan fidsana fooro ka koob inta negative ka fidisa dawladda ka baqashada asaas ka qabta fooro ka koob ka soo taaka fiicnay oo qarka daafacday kulka waxaan u baahanahay inaan waa su'aal wanaagsan warsayn public oo soo qaadana in yar oo in aan fiicin maysan lacag la carruurta korisay noqon maayo qarankani inay in yar oo boqolkiiba 10 gaar dhaqaalaha inta ay carruurteedu korto inta kalena ay dhulka noqoto qaranku kuma dhismaayo waan soo waafaqsana sanu taabdoodina waa inuu kooda hawl gala oo isla fahamnaa dadku waa inay dawladda cashuurta iyo taageerada galaan dadka xukuumadda hayeenka ka ahayna waa in halka laga qabtaa in ay wax dadka cunaan masmaas daan ugu wadaan jeebka buuxsado dalacag dhiibis xaq baad u leedahay laakiin dadku wuxuu xaq u leeyahay ilaaliyo inaan dhaqaalaha madaxdu aan la xsanin ee dadku wax ugu qabto taynu ka wada simanahana waa taa inuu dadaalkeena wada marka waxyaalaha inaga dhiman bay kamid tahay dhismaha dawladnimadeena koraya biro way kamid tahay shalay bay ahayd waa joogtaa laga yaabaa dalka iyadoon iskuulba fureen shalay bay ahayd iyadoon station brisba fureen furanka dambiyaal baa ku xidhan olaanay miyana shalay ahayn iyadoo ninkii saldhigga haystay casar intuu qoriga soo gaar xabad dhafoor ka rufan taliin saldhigga ma joogto markaa samee loo maqlay soo ciyaarkii joogay ma lahayn wax lagu xidhan maantana maxaynu maraynaa maxbuus kasta oo tiriyo mid kasta oo xoog weyn u qaban in isku leeyahay laakiin ay naga taagdiray marka waa inuu hawlgala saadaraadaan dadka kale ee jirana way soconayaan dhibaatooyinka maalmo wada imanaysa halkeeda iyo garashadeeda iyo ka fikirkeeda iyo tirkeeda u baahan ma jirin kaliya waxa ay ogeeyeen madaxweyne waad ku mahadsan tahay waqtiga fiican aad nasiisay magacaygu waa xasan maal lidar waxaan ka socdaa idaacadda VOA sidaynu la wada soconno waqtigii aad ololaha ku jirtay waxaad ku ololeyn jirtay in magaalada Hargeysa ay helayso biyo nadiif ah oo jaban dhawaan wakaaladda biyuhu
waxay qaaliyeysay qiimihii biyaha maxaa keenay qiimaha la qaaliyeeyey ee biyaha ninka odayga wariyuhu saashii wadii uu ogyahay waxa keenay wada ogtaado in suu gaaray sicir bararka shidaalku in suu isbedel qiimihii shidaalku bilihii aynu ku jiray kariisha January iyo February iyo March February laga soo gaaray biinasi 3 bilood waxaanu ka wada dowladda dhaxa ka cabisay shidaalkii oo sicir bararku iskareeyay bil walba oo $100 30% hoos u dhacay $280,000 ka badan biyaha Hargeysa lagu cabaa shidaalka waxaanu dalka ugu dhibaato badan biyaha ay ku cabaa ee waliba ay 9% magaalada inta ku nool ay hesho biyaha inta kale aan gaar inta kale boodaysa ay ku cabaa marka markuu roobka da'ay ee la qabowsaday inay batroolkaygu iska bixiyaan weey waxa soo duruufana u xeeran taas loo gurmanaya waa ka sheegay iskuulada public rinji xitaa way baahanayeen mas'uulaha loo qabo caafimaadkeena kornaa waynu u baahanaa wax yareeyo hayna kulba halkay aynu ku hagaajinaa waynu u baahanaa marka markii roobka da'ay dadkii 70% biyay ka helayaan diyada kraiskii ay geed debli wada bowdaha u joogsaday marka hore waxaan u keenay bowdaha ka qaaday geed debli qasado inaan kala joogsanin intay qaad kala qaadaan marka aynu iska bixiyaan shidaalkoodii kor u qaada biyii magaalada oo istaagin waxaan loo kordhiyay waxaan wada 100 shilin inay tahay baalka litrka 100 shilin foostada $1 ku shilin koob shaama laakiin qoladii miidiyaha waxa ka dhigteen wax aad iyo aad weyn idinku og dhibaato jirta la yaab ma xaq bawleedii faraska usoo waxa lagu saa ka badin dawladda waxa la karbaashay madaxweynaha saa u dheereeyaan taan waradka ogolaa